madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar dalka dibadiisa saaka ugu ambabaxay dalka Kenya ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka beeraha ee dalka Kenya iyo sidoo kale xogayaha maamulka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya qoraal lagu baahiyay barta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay tahay saaxiib dhow oo ku taala geeska Afrika oo muhiim u ah la dagaalanka argagixisada waxa warbaahinta faahfaahin dheeriyo ka siiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo sidoo kale safiirka u fadhiya Soomaaliland dalka Kenya Ambassador Basha Awil waxaan rabaa inaan si kooban dadweynaha ula socodsiiyo halka kan waxaan ku joognaa hoteelka Leeyahay Kambinski ee magaalada Nairobi ku yaala waxa halka kan marayay wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay martiqaad rasmi ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaan kula soconay wafdi ballaaran oo dhowr wasiir ay ku jiraan wasiirka arrimaha gudaha wasiirka deegaanka wasiirka maalgashiga wasiirka caafimaadka iyo aniga oo ah wasiirka arrimaha dibadda si ballaaran ayaan halkaan loogu soo dhaweeyay dawladda Kenya aad u diyaar garowday oo halka si ballaaran oo diyaar u tahay u soo dhaweysay baanu kula kulannay waxaan argeeyay hoteelka Kambinski dawladda Kenya iyo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay wada yeelan doonaan wada hadallo fara badan iyo iskaashi arrimo badan oo iskaashi inay ka wada hadlaan berrito ayay labada madaxweyne ballansan yihiin dabeedna halkaa waxaa ka bilaabmi doona wada hadallo ay wada yeelan doonaan dhinacyada kala duwan wasaaradaha iyo madaxda dawladda arrimaha badan ee labada dal inay iska kaashadaan u qorshaysan wafdigu maanta galabta nasasha ayaa loogu talagalay berritana madaxweynaha labada madaxweyne ayaa isarki yeelanaya halkaasayna ka bilaabmaysaa wada hadalladii iyo in la iska brief gareeyo wixii hadba qorshayaal jira bismillaahir rahmaanir rahiim sida maanta uu sheegay waxa magaalada Nairobi yimi wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wafdigan madaxweynaha oo ku yimid martiqaad ay ka heleen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa halkan joogi doonaan muddo 2 ilaa 3 cisho ah wafdiga waxa maanta airportka ku soo dhaweeyay wasiirka beeraha Peter Munya wasiirka dawladda arrimaha dibadda Abaabul Namwambe iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda muddadan uu wafdigu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas'uuliyiinta ugu soo sareysa dalka madaxda kale ee caalamka iyaguna halkan saldhigoodu yahay insha Allah waxaan rajayn doonaa wixii warbixinada dambana inaan dib idinku soo gudbino hase yeeshee maanta wafdigu kulamadooda wuxuu ka ekaa uu qado soo dhaweyn iyo kulamo intaan ku eg ayuu baahayeen wixii dambe insha Allah iyo warbixinta dib idinku soo gudbin doonaa Cabdiwahaab Maxamed Jaamac Irguje Telefishinka Caalamiga Sahan Hargeysa